waxa isweydiin leh sababta madaxweynaha Mareykanka loogu yeeray hogaamiyaha ugu saameynta badan qaaradda Yurub. Isla weydiintaas waxa ka jawaabtay shabakadda Politico oo samaysay qiimeynta la xiriirta hogaamiyayaasha qaaradda Yurub ugu saameynta badnaa sanadkan dhamaadka ah ee 2025. iyagoo taas ka duulaya waxay xusheen 28 qof oo ku baratamay hogaanka ugu fiican marka ay joogto dhinacyada dhaqaalaha, difaaca iyo siyaasadda. waxaana si lama filaan ah kaalinta koowaad ee qiimeyntan ugu guuleystay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. qiimeyn awoodeeda caynkan ah waxaa jaangooya arrimo ay ugu horeeyaan sidaan horey u niri dhaqaalaha, magaca siyaasiga ama caannimadiisa iyo awoodiisa fulineed, waana kuwan kaalimaha ay ku fashilmeen hogaamiyayaasha Yurub sida xogta Politico warisay ee sababtay in Trump mustawahan cidla ka qaato. docda saameynta marka ay joogto, Trump markii uu xilka ku soo laabtayba waxa uu sheegay inuu la wareegayo jasiirad barafeedda Greenland ee ka tirsan boqortooyada Denmark. xeelad haddii ay dhaaftana waxa uu sheegay inuu xoog ku qaadan doono, taasoo khalkhal badan iyo hadalhayn ka abuurtay qaaradda Yurub, gaar ahaan dalyarahan ku yaala gobolka Scandinavian-ka oo ku baaqay inaan lagu fiirsan xadgudubyada xuduudeed ee Donald Trump. mar kale, Trump waxa uu faragelin aan gabasho lahayn ku sameeyay dagaalka Ukraine, isagoo dalkan ka tirsan qaaradda Yurub ugu baaqay inuu ka tala baxo qayb ahaan xuduudaha Ruushku doonayo si dagaalka loo soo afjaro. aragtidan waxaa lagu warramayaa in Trump weli u arko xalka lagu dhamayn karo dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Trump waxa uu mar kale dalalka Yurub u sheegay inaysan intaa ka badan ku sii tiirsanaan doonin difaaca Mareykanka ee danahooda ammaan iyo dhaqaale, una baahan yihiin in NATO isku filnaato ka maaranto Mareykanka oo dalalkani dib u qaabeeyaan awoodooda difaac, taasoo sababtay in inta Yurub dib isugu laabato dal walba gaarkiisa dib boorka uga jafo ciidamadiisa, hubkiisa iyo istiraatiijiyadihiisa difaac. shabakadda Politico oo ku warrantay inay waqti badan wariyeyaasheeda iyo khubradeeda qaaradda Yurub geliyeen samaynta liis awoodeedkan, laguna dhisay saameynta hogaamineed iyo docda go'aan gaarista madaxda qaaradda Yurub, waxa ay dhaheen waxaa noo soo baxday in Trump qaaradda Yurub kaga saameyn badan yahay hogaamiye kasta oo ka mid ah madaxda qaaraddan. inkastoo ay fajac tahay, haddana waxaa kaalinta labaad ee liiskan galay madaxweynaha Denmark, halka uu kaalinta saddexaad ciriirsaday Friedrich Merz-ka Jarmalku. Donald Trump oo kadib qiimeyntan lama filaanka ah wareysi siiyey isla shabakadda samaysay ee Politico ayaa sheegay inuu madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uga fadhiyo inuu inta akhriyo go'aan degdeg ah ka gaaro qorshe nabadeedka cusub ee Trump ku doonayo soo afjaridda dagaalka Ruushka iyo Ukraine. isla wareysigan waxa uu ku sheegay in Ukraine dagaalka looga adkaaday, dhul xad beela laga qabsaday, ayna u baahan tahay inay qasab docdeeda go'aan dhaqsale uga gaarto si socoshada dagaalkan. uu sheegay inuu halis ku yahay sii jiritaanka Ukraine. They lost a lot of land, and it's very good land too that they lost.